aad baad u mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaasha raadiyo daljir waa salaamaya meel alla meelay joogaan bayaanka maanta isbahaysiga isbedeldoonka coalition for change uu soo saaray wuxuu ku saabsan yahay in xildhibaanada aqalka sare ee laga soo xulayo labada gobol ee ah hiiraan iyo shabeellada dhexe loo daayo deegaanadoodii si aad la socotid labada gobol maamul ma yeelan maamulkaasoo baarlamaan leh oo markaa baarlamaanka loo gudbiyo xubnaha aqalka sare maadaamataasi aysan jirinin in la soo wareejiyo oo xamar loo soo wareejiyo sida ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka dadban waxay noola muuqataa arrin aan sax ahayn wixii lagu heshiiyeyna khilaafsan dadkaani maadaama ay masalayaan maamuladaas aqalka sarena la yidhaahdo waa aqalka maamulada waxaa asalku yahay in xubnaha lagu soo doorto magaaladii ama gobolka ay kasoo jeedeen arrintaasina waxay sahlaysaa logisticska iyo waxyaalo fara badan oo ku xiran waxayna usoo dhaweynaysaa in dadka laisu soo dhaweeyo oo si wanaagsan ay xubnaha u qaybsadaan waxaanu u aragnaa arrinta maanta dhacday inay tahay faragelin ay dowladda dhexe iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilkiisii dhammaaday madaxweyne hore soomaaliya uu ku faragelinayo shaqada guddiga uma aragno shaqadaasi shaqo dhexdhexaad ah inay tahay waana kala xiriirnay guddiga iyo dhammaan inta ay khusayso in arrintaasi aanay sax ahayn waxaad moodaa doorashadii dalka in dib loo dhigayo in madaxweynaha sharci ahayn xukunkii weli uu gacanta ku hayo in maamuladii inay soo xushaan xubnahoodii xataa la rabo kulli in xamar loo soo wareejiyo arrintaa waxay keenaysaa in si toosa faragelin loogu maamulo xubnaha xamar imaanaya hadday deegaanadooda joogaanna xurnimay heli lahaayeen marka waxaanu ka deg arrintaasi inay khatar ku tahay hanaanka cadaaladda xornimada iyo xalaalnimada doorashada waayahay marka dabcan markii la eego go-aankan hadda soo baxay idinku aad diidaysaan doorashooyinka waxaa la yidhi waxaa lagu qabanayaa caasimadaha maamulada ka jira dalka hadda hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamulkoodii lama dhisin waad aragtaa weli waa uu taagan yahay waa uu cakiran yahay xageed is leedahay marka way habboon tahay in iyagu laga soo xulo maadaama aysan lahayn hadda maamul midaysan labadaasoo gobol si khilaafka jira loo xaliyo waxaan u aragnaa inay sida saxdaa tahay in lagu soo xulo labada caasimadood ee labada gobol oo ah beledweyne iyo jowhar arrintaasi waxay sahli lahayd dadku inay soo doortaan xubnaha ka imaanaya goboladooda maadaama isimada iyo dhaqanka loo celinayo waxay kaloo sahli lahayd inay noqdaan dad masalaya gobolada ay ka soo jeedaan xamar annaga hadda ka nimid shir ku qabanay idaacaddii qaranka soomaaliyeed iyo t v-gii dowladda soomaaliyeed labadaasba waa laga mamnuucay inay shirkayagii tabiyaan marka in hadda loogu yeerto xubno kaloleydaa lagu qabanayaa waa arrin dowladdu ay salka ku leedahay waxaana u aragnaa inay wax weyn ka bedelayso nidaamkii doorashada dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilka saad joogtid ku haysta si aan sharci ahayn maadaama waktigiisi dhammaaday 10 bishii September waxa uu doonayaa inuu doorashada isagu gacantiisa ku maamulo waxaad la socotaa inuu isku dayo wax alla wixiisu ka garanaya inaan musharaxiinta iyo dadka tartamaya xamar isugu imaan amniga uusan hagaagin annaga tagno naloo diiday xataa inaanu ama VIP-da marno ama ku qabsano shir airport-ka warqadaha laga soo saaray dadka shacabka ay khasbeen waan markii madaxweyne hore Soomaaliya Sheekh Shariif ayay qaraarkii ka noqdeen laakiin TV-ga dalka iyo mataqaana laamihii amniga kulligood gacanta madaxweynaha ku jiraan markaba dadka loo xulay inay noqon doonaan dad masali kala deegaanadaas sida saxda waxa weeye in labada caasimadood labada gobol loo daayo inay xubnaha soo xushaan waayahay bayaankan cidda soo saartay ma siyaasiyiin ma musharaxiintiina ma xisbiyada si gaar ayaa soo saaray bayaankan iyaadse u gudbiseen bayaankan waxaa soo saaray isbahaysiga isbedeldoonka ama coalition for change wuxuu ka kooban yahay musharaxiinta dalka intooda badan 90% iyo ka badan madaxda xisbiyada iyo dad siyaasiyiin iyo xubno baarlamaan hore ahaan jiray oo miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya waana inta
intii ku qabatay shirka muqdisho dhowaan waad la socotid oo bayaanka hore aanu ka soo saarno koobaad waxaanu isku bahaysanay in waddanka ay ka dhacdo doorasho wanaagsan oo xor ah oo xalaal ah oo loo siman yahay oo ummadda soomaaliyeed ku rayrayso waxaan u aragnaa qaabka hadda loo maamulayo oo doorashadii waktigeeda dib loo dhigayo waxay u caddayn u tahay in la doonayo in mar kale la kordhiyo xil aan sharci ahayn markii madashu shirka u dambeeyay ku qabsatay muqdisho waxay soo saareen in doorashadu ay dhici doonto 11 bisha Oktoobar madaxweynaha laakiin madaxweynaha xilka hadda haya waxay yiraahdeen xilka wuxuu haynayaa ilaa doorasho dhacdo meesha xilka wuxuu haynayaa ilaa 30 Oktoobar ama konton beri kaliya ayuu haynayaa taasoo muujinaysa in la diyaarinayay in mar labaad la kordhiyo xilkiisa waa sida xaalku hadda ku socdo anta waxay keenaysaa dadku inuu naga cajiso ummadda Soomaaliyeed ay ku daa doorashada in la qoobo waxaan qabnaa in sida sharciga tahay si xalaala oo degan oo loo siman yahay oo annagu aan tala kulanay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo annagu hadda waxaan musharaxiin ilka u taagan saadad xaq baan kulliga u leenahay tala weydiiyo waayahay cali xaaji marka aan ka soo gudubna arrinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo xildhibaanadooda dabcan guddiga doorashooyinka la dhisay dhowr jeer dib u dhac ayaa yimid xilligii doorashada lagu ballamay markaad kaashato waayo aragnimadaada xaq ma u leeyahay guddiga inuu bedel ku sameeyo wixii ay soo saareen go'aanada ay soo saareen madaxdii madasha wada tashiga qaran ee dhowr jeer iyagu shiray xaq ma u leeyihiin guddiga doorashadu in isbedel sameeyaan ama doorashada waqtigii madasha lagu ballamay inay dhacdo iyagu ay dib u dhigaan horta saadogta Umarow saadogtahay madaxda mataqaana madasha qaranku intii ugu sareysay oo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihi كل وقت مشرحين هذا شرحوي ما أنا حقنا وما لها إن قف مشرح يسقوا يوريه ورشاد ضفك سيده هو عايشه النجو قد قال مركي لما جعابي وحنو كمل تناي كونسين حق بدن وحنو أركين قد لما جعابي بتكتر سن شقالي الدولة مركي ورا وحمل جدي وسرية حل بانه يجي يبدأ حرم كأوحي كده بدله تيم كان لفتي سوحي عين دبو بدن دولة وشقية وحن كسر دويني ونيرود عن كل نوحي هاي ما دام شرطا به سنشرين أو مرشعة مدحويني رسول سارين مشارحيين وهي حتى كتم بيه وحل وحي اسبدل أو كل ما يطاق كدورشرة إن نقطة مدلو بيه هاي لكن واحد مودا عقوادة بدن أو مدحويني وسنين أي هورتاغن أو تنهد أي كم تاي بلكن أسر تكري ويني maamulkii gacan kuriska inuu jawhar ka sameeyo ayuu wuxuu rabaa xubnihi inuu xamar keensado waxaan qabaa waxa uu ka shaqeynay madaxweynaha intii ku raacsanba inay tahay wax Soomaaliya guuldarro u horseedaya doorashada caqabad ku noqonaya keenaya doorasho aan lagu kalsoonayn annagana inaanu go'aan ka qaadano waxaan xalaal ahayn oo aan xal ahayn oo dalka uusan u samayn inaanan qayb ka noqonin bay keenaysaa arrintaasi annagu haddaan doorashada diidno doorasho dhacaysa ma jirto madaxweynuhu waxaan qabaa inuusan taladaan lahayn guddiguna waxay inagana tala weydiiyaan sida saxdaana waxa weeye in Soomaaliya doorashadeedu maanta maadaama cid sharciyeed aysan jirin madashii waa dhamaatay madaxweynuhu waa ra'iisul wasaaraha waa musharax guddiga wasiirada waa burburay baarlamaanka waa burburay cid maanta sharciga dowladnimo sheegan kartahay mala jirtaba guddigaada dadka u dhaxayn lahaa iyagana waxay dadkoo dhan tala weydiiyaan waayahay marka ugu dambeyn cali xaaji warsame dabcan in la is eedeeyo iyo in faraha la isku taagtaago ka sukow bal ugu dambeyn waxa dhacaya way ku muuqdaan adigu maxaad xal u aragtaa anigu mudan waxaan u arkaa in doorasho qoran la galo in si walaalnimo Soomaalinimo gobonnimo loo tartamo doorashada dhulka la dhigo madaxweynuhu waa musharax xilkiisa waa dhamaaday ra'iisul wasaaruhu waa musharax baarlamaanka waa burburay ma jiro ayaga madaxweynaha ay timkiisa baabiyeen madashii waqtigeedu waa dhamaaday in marka si cad musharaxiintu isugu yimaadaan maadaama cid sharciye leh aanay jirinin waxaan qabaa inaan wada hadallo waan heshiino maslaxadda ummadda iyo Soomaaliya inay ka baxdo meeshii ku jirtay loo celiyaa la rabaa madaxweynuhu 4 sano oo uu ka shaqeynayay waddanka inaan doorasho ka dhicinin wuxuu maanta ku darsaday inuu ka shaqeeyo inaan dhulka la dhiginin inuu boobo ama in aysan doorasho dhicinin arrintaasi
lagama yeeli doono cidina dan uguma jirto ummadda soomaaliyeed dan uguma jirto waxaan qabnaa dadkan in loo daneeyo waxaa la sugayaa dumar iyo caruur iyo dad waaweyn iyo amni darro iyo dil iyo dhiig daacaya waddankeena ciidan ma laha difaaca ciidamo kalaa jooga ma heshiisiin ma jirto 4 sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud soomaalida waa kala fogeeyey waa isku diray waa iska hor keenay waa isnaceen meel ka xun bay maraysaa meeshii 2012 ay maraysay xalku wuxuu ahaa anagu u arkaynay in dhulka la dhigo lana wada tashado waxaan ugu yeerayaa madaxda dalka oo dhan inta musharaxiinta inay isugu yimaadaan shir arrintaas wuu qabadasho ismahaysiga waa u qabaa taasna lagu gooyo qaab xalaala oo doorashada u dhacdo haddii kale waxay noqonaysaa iyada iyo wixii ka soo baxaba waxaan xaqna ahayn xalaal lahayn waa mahadsantahay cali xaaji warsame aad iyo aad baa mahadsan